waddanka amnigiisa ugu sarsare ayaana lagu aaminay madaxweynaha dalka nagu aaminay dowladda Kenya nagu aamintay dad waddanka u dhastay oo waddankan madax ka nahnaa in dowladda amni ku filan ay keentay ciidamo ku filan kuwa dharcad iyo kuwa kale oo labisanba waa joogaan xaafadda way sugan tahay annaga ma la rabo cabsi in yar iyo jaxanjax inaan tusno magacaygu waa Axmed Qadar Maxamed Dabar libaanka xaafadda Islii ee dowladda hoose ee Nairobi County xaafadda waa ka wariysan sidii loo waardiyeenay qorin oo lagu waardiyeenay sujuudna lagu waardiyeenay taas waxay ku tusaysaa in xaafadda aad u kubacdatay xaafad laga warhayo dowladda si hoose iyo si kor looga warhayo marka waxaan leenahay hala shaqeysto berito dowladda amni ku filan ay keentay ciidamo ku filan kuwa dharcad iyo kuwa kale oo labisanba waa joogaan xaafadda way sugan tahay annaga ma la rabo cabsi in yar iyo jaxanjax inaan tusno dalka dhaqaalaha meesha laga maamulo koowaad iyo labaadaan ahnaa wixii anaga nagu soo duulona waa iska dhicinaynaa wixii anaga nagu soo xadgudbino kuma xadgudbino marka shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa xaafadda iyo dalka dhan mudaharaadyo far badan ayaa ka socday hal mar ma dhicin xaafadda Islii wax qalaalanso ama mudaharaad kama dhicin taas waxay ku tusaysaa shacabka Soomaaliyeed ee xaafadda ku nool inay yihiin shacab shaqeystaan shacab oon shughul ku lahayn qalaalanso oon shughul ku lahayn boob oon shughul ku lahayn dhac oo ayaga ganacsigooda iyo howlahooda iyo danahooda qaaska dad ku mashquulin yihiin waddanka dhanna hadalhaynta yaa nala haystaa oo ka mid tahay Soomaalidii way iska shaqaysanaysaa waxyaalahan waxba kama laho oo mudaharaadka iyo kacaanka dalka jira waxba ku mashquulo anaga waddanka amnigiisa ugu sarsare ayaana lagu aaminay madaxweynaha dalka nagu aaminay dowladda Kenya nagu aamintay dad waddanka u dhastay oo waddankan madax ka nahnaa in waddanka aan tusno mitaalo lagu soo qaato dadkii way shaqaysanayaan ganacsi ugu socda waa shay dalka sharaf u ah Soomaalidana sharaf u ah marka aan shaqaysano aan soo baxno howlaheena iska wadano cidii anaga nagu soo xadgudubtana waa iska dhicinaynaa diinta qabtaa dowladda Kenya qabtaa dastuurka qaba qofkii xoolahaada iyo naftaada isku soo weeraro inaad iska dhiciso diinta qabtaa sharcigaana qaba marka anaga aan shaqaysano aan soo baxno howlaheena aan wadano amni nagu filan waa joogan xaafadda dowladda way keentay oo wali xataa amniga dadka ugu sarsare amniga hayana waa dadkeeni waad ka